maanta waa maalin weyn waa ciid waxaan leeyahay hambalyo meel walba ay Soomaali joogto waxaan leeyahay hambalyo golaha wasiirada taliyaasha ciidamada iyo sareeyaasha gudoomiyaha gobolka halwadeennada gobolka kooxda gobolada waa bari halgan iyo kooxda asluubta bahda saxaafadda bambayda kulli waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh allah mahad iska leh allah mahad leh oo maanta noo suurtageliyey inaan halkan annagoo caafimaad qabna aan uga soo qayb galno 60 guuradii ka soo wareegtay maalintii ay koonfur xornimadeedii ka qaadatay gumaysiga Talyaaniga ayna la midowday walaalahood waqooyi oo iyagana ka xoroobay gumaysiga Ingiriiska waxaa la soo maray halgan dheer lagu raadinayo xorriyadda dad badan baa ku dhintay dad badan xoolahoodii ku waayeen dad badan xabsi u galeen dad badan waa u dhibtoodeen intii dhimatay aan u duceyno ilaahay inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii inta nool sida hooyo kale halkan muujisay inay haysato aqoonsigii SYL-ka waxaan leeyahay ilaahay caafimaad iyo cimri ha ku siiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aan shalay ka qayb galay inaan daah furno ama aan xariga ka jarno isbartiibadii Muqdisho Stadium oo muddo xirnayd oo ahayd goob dagaal ahayd xaqiiqatan goobtaas waxaan bilownay in ay noqoto goob cayaar oo dadku ay ku tamaashleeyaan ay ku cayaaraan markii aan nimid oo nala doortay 2017 waxaan ka galnay shaqo aad iyo aad u badan inkastoo ciidamada amisom meesha fadhiyey ay ka waardiyenayeen ama ay ka difaacayeen dowladnimada ay dhiig iyo nafba u hureen waxaan markii dambe ku heshiinay oo isku qancinay in ay raadiyaan goob kale oo difaac laakiin meeshaas ay noqoto goobtii shacabka Soomaaliyeed ku kafaaxi lahaayeen laguna ciyaari lahaa kubadda cagta iyo olombigaba ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan ku booqday sanad iyo barka bacdi aana uga mahad celiyey amisom ciidamada amisom ka guuritaankoodii ay ka guurayeen goobtaas oo aad kulli masawirradooda aragteen qaar badanna laga yaabo inay tageen meesha oo dhirta iyo jiqda iyo foolxumada ku taalla meeshaas marnaba aan loo riyoonayn inay ahayd goob cayaar inaysan ahayn runtii waxay ugu reebtay emotional urxum ay ugu reebtay meeshaasi aan ugu aqaanay markii la furaayeen xaadir ayaan ahaa sida u ekayd iyo sida ay u ekaatay waxaa meeshaas gaarsiiyey inay ahayd dagaal sokeeye iyo qabiil iyo qabyaalad loo dagaalay macnaheedu waxa weeye inaan barannay waxa qabiilku taro qabyaaladuna tarto qabyaaladdu waxa weeye gurigaagii dumisaa ma dhisto waa astaamaha aan ka cabiran karno waxa ay leedahay qabiil iyo xarbu ahal ay leedahay 2 isbuuc gudaheeda waxaan faray golaha wasiirada xukuumadda iyo isxilqaan tiimka ama groupka isxilqaan 10 bari iyo 15 bari gudaheeda waa geed qaadeen waana nadiifiyeen waxaan bilownay inaan isku tashanno
bacdama aan weydiisanay dowlado inay noo dhisaan isbartiibada iyo tiyaatarkan dowlad walbana ay leedahay haddii aan dhisno dhaqaale gelino ama dumisaan marka ma waxaan sugaynaa ilaa xabadda ugu dambaysa ay ka joogsato Soomaaliya maan sugaynaa inaan dalkeena dhisano waxaan go'aan ku qaadanay in aan isku tashanno gacmaheennana aan ku dhisanno wixii aan shalay duminay ilaahayna waa nagu guulay markii aan bilaawnay inaan dhulkiisino oo foolxumadii ugu darnayd aan ka qaadna meesha waxaa ka soo jawaabay European Unionka iyo Norwegianka yaa ka soo jawaabay oo yiri gacan yaan ku siinayna hadda dhaqaaqdeen waxaa la fiilayay inaan fiirsanayno oo ayna dhaqaaqeenin ilaa dad shisheeye ay yimaadaan ee yiraahdaan waa dhaqaaqi kartaan hadda waa mahadsan yihiin waa u mahad celinay ciidamadii meesha joogeen waa u mahad celinay ciddii dhaqaale ku darsatay oo gacanna siisane Norwegianka iyo European Unionkana waa u mahad celinay laakiin waxaan u mahad celinayaa annaga isu mahad celinayna idinkaan idin mahad celinayaa isxilqaan dadkii isu diray yaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa xukuumadda yaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa gobolka Banaadir Allah u naxariisto markaas waxaa hogaaminayay injineer Cabdiraxmaan Yariisow ilaahay jannadiisii naxariistiisa ilaahay ha siiyo waxa annagu aanan qabsan oo aanan isku tashan cid noo qabanaysa inaysan jirin ogaada waxaan u mahad celinayaa guddiga iyo guddoomiyaha qaran ee xuska 60 guurada wasiir Maareeye oo u xil saarnaa inuu 60 guuradan ka dhigo 60 guuro ka duwan sanad guurooyinkii la soo dhaafay ka duwan waxaan bilaawnay ka hadalkeeda markii 59 guuradii ay noo dhamaatay oo aan xaflad u sameeyay mahad celina iyo abaalmarina yaan hore ka magacawnay si aan isugu diyaarinno muddo hal sano ah in sanad guuradan ay noqoto mid dalkoo dhan aan ku dhisno oo annagoo ilaahayna ku tashanayna annagana isku tashanayna waxaa qayb weyn ka ah wax walba aan sameeyno waxaa qayb weyn ka ah gobolka Banaadir oo la'aanteed aan waxba la qaban karin haddii la isku dayana meel fog aan la gaari karin Allah ha u naxariisto Cabdiraxmaan Yariisow oo isagana qayb ka ahaa yaa tiisii u timid ay cadowga halkaasi ay ku dhibaateeyeen ku dileen isaga iyo howlwadeena kala gobolka ah hawshaasi waxay naga hakatay ilaa dhowr bilood intaan ka magacaabeeno gudoomiye cusub aan ka magacaabeeno halkaasi waxaana galay hakad yaana galay oo ahayd in aan hal sano isku diyaarinno goobo badan oo dawladdu leedahay iyo goobo badan oo dadku wada leeyihiin ay jidadku ugu horeeyaan inaan dhisano gacanteena ku dhisano oo shacabkeena aan dhaqaale ka arurino oo ganacsatada aan dhaqaale ka arurino oo annagu aan isku tashanno hakadkiina galay waxa noogu soo xigay gudoomiyihii cusbaa intuu shaqada ka baranayo iyo COVID-19 oo adduunka oo dhan kala xiray taasna waan curiyaamis runtii waxa hadda aan qabanay waxa ahayd wax aan ka gaarsiinayno mooyee wixii aan ku talagalnay iyo qorshaheenadii meel u dhow ma gaarin waxaana qayb ka ah saan sheegay cudurkii safmareenka ahaa oo adduunka oo dhan kala xiray iyo geeridii ku timid iyo maxaan ku raahdaa gudoomiyihii cusbaa oo intuu shaqada ka baranayay laakiin hadda waqti waa haysanaa waa aragnay waxa annagu gacmaheenaan ku qabsan karno waxa annagu gacmaheenaan ku dhisan karno waa aragnay tijaabo nagu filan waa haysanaa wixii hadda ka dambeeya waa inaan isku tashanno waxaa la yidhaahdaa sacabo biyo sacbadaada looga dhargaaye annagu aan isku tashanno gacmaheenaan wax ku qabsanno
waxaan rabaa oo kale hawsha ay qabatay ama ay qabteen guddigu inuu ahaa wacyigelinta dadka ka hadalka taariikhda gobonimada loo soo maray dadkii taariikhda magac ku lahaa in wasaaraddu ay isu xil saartay inay wacyigelin ballaaran ay samayso waana ku mahadsan yihiin hay-adda horumarinta dhismaha qaranka uu maareeyo guud ka yahay Bashiir Goobo isagana waxaan leeyahay waa mahadsan tahay Bashiir kaalinta aad ka qaadatay waajibaadka aad gudatay dhismaha taalooyinka dhismaha isxilqaan iyo meeshii loo baahdo in wax laga qabto inaan niraahno Bashiir awa Bashiir wuxuu Bashiir dib u soo kiciyay warshad meel noo taalay oo muddo hore xirmatay oo magaalada qayb ahaan lagu dhisay oo ay nasiiyeen ama ay nagu taakuleeyeen dowladda saaxiibaha nahay Turkiga warshadaasi waa warshad dhismo soo saarta bulukeetiyada iyo wax alla wixii dhismaha ku taxalluqa inuu dib u kiciyay uu u raadiyay kuwii iyagu warshadaasi isku rakibay oo ka shaqaysiiyey inuu dib u raadiyay oo haddana ay tahay functionid ay shaqaynayso waxa dalka lagu dhisaayo iyo waxa dalka lagu dhisi doonana ay tahay warshadaas waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed runtii kaalinta wanaagsan ay ka qaateen isxilqaan waa arkaynay inay yihiin xubin muhiim ah oo aan laga maarmin iyaguna annagoonan culays saarin iyo isxilqaameen oo isu tageen oo shirar qabteen oo ay dadaal sameeyeen wax alla wixii karaankoodana ay ku caawiyeen isxilqaan oo qayb ay ka tahay tiyaatarkan madxafka maktabadda insha Allah waxaan filaynaa inay ka sameeyaan maxaa la kaalmo ka galaan waxyaabaha dambe oo aan qabanayno hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa ugu dambeyn inaan u mahadceliyo oo mar walbaba la yiraahdo xildhibaanadii shaqeynayay oo ayaan dhaweyd aan ognahay golaha shacabka iyo guddoonkooda oo ka jawaabay dareenka dadweynaha shacabka ah ee degan magaaladan iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed matalaada xamar oo muddo dheer sugaysay inay runtii kaalintooda ay qaateen oo ay ka jawaabeen iyo weliba codsigeygii oo aan ka codsaday inay igu sharfaan in aysan iloobin magaaladan oo ah caasimadeenna magaalo aan jecelnahay oo ummadoo dhan ay wada leeyihiin oo muraayad u ah in ay u garteen matalaad aan sugayn insha Allah sidii lagu dhaqan gelin lahaa matalaadaas aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa golaha shacabka iyo guddoonkooda waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyo waa ciid kulli ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay tahay inay u ciidaan ciidan iyo xornimadaani maxay ku timid yaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo xornimadaani kuma imaanin sahal xornimadaani waxay ku timid dad badan oo naftooda hurayaal ah inay u hureen naftoodii dad badan inay dhiig u daadiyeen dad badan inay dhaqaalo ay ku bixiyeen dad badan inay u dhibtoodeen 13 dhalinyaro ee hormoodka ahaa inay ahaayeen dad visionary ah oo ka duwan ama weliba ka horeeya dadka hadda nool weliba SYL yaan dhihin kaligooda SNL iyaga naftigooda oo gobolada waqooyi ahaa waxay lahaayeen hadaf ayay lahaayeen gumaysiguna hadaf ayuu lahaa hadafkaasi kaliya ma ahayn xornimo doon wuxuu ahaa isbedel doon oo xaaladda lagu jiray iyo gumaysiga lagu jiray ummadda Soomaaliyeed inay ka baxdo oo ay hesho mustaqbal wanaagsan mustaqbalka wanaagsan ee ummaddaas ay helaysana waa annagana mustaqbal fiican yaan helnay
markii ay naftoodii u hibeeyeen dhiiggoodii u daadiyeen waxay arkayeen markaasi oo hadafkoodu ahaa in wax ka duwan waxa gumaysigu rabay gumaysigu wuxuu ka shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed inuu kala qaybiyo si uu xukumo ummadda Soomaaliyeed waa la yaqaanaa ciddii rabta inay dhibaatayso waxa lagu kala qaybiyaa ummadda Soomaaliyeed qabiil iyo qabyaalad yaa lagu qaybiyaa isticmaalkana waa isticmaalay muddo dheerna waa u shaqaysay haddaba gobonnimadoonkii SYL iyo SNL iyaga naftoodu waxay fahamsanaayeen inay keenaan xirfad ama caqli ka duwan kaas haddii ay rabaan ummadda inay xoreeyaan oo mustaqbal caruurtooda iyo caruurtay sii dhalaan ay uga tagaan iyaguna waxay keeneen waxa la yiraahdo waddaniyad ummadda Soomaaliyeed in la baro waxa ka dhaxeeya in la baro in ay jeclaadaan dalkooda inay iyagu isjeclaadaan haddii ay doonayaan inay gumaysi la dagaalamaan ama ka saaraan iyo haddii ay doonayaan inay caalamka intiisa kale la tartamaan waxay ay keeneen oo kale midnimo oo iyadana ka soo horjeeda qabiil iyo qabyaalad maxay la qabiilku qabyaaladda waa ka hadalnaa mar walba waa wax kala qaybis iyo dhibaato laakiin midnimadu waa isjecel wada jir isu dhawaash ismaqal wada tashi weeye waa ku guuleysteen inay wacyiga dadka ay kor u qaadaan ay tusaan Soomaali in waxa kaliya ay ku midoobi karaan inay tahay xorriyad doon inay ahaato haddaba isbedel doonkoodu ma ahayn isbedel doon jaga lagu raadinayay ama darajo lagu raadinayay oo iyagu ay naftooda wax ku raadsanayeen ma ahayn isbedel doonka dhabta ah waa kan ka weyn qofka shakhsiga ah haddaba waxay keentay dowladnimo iyo noo keentay oo Afrika aan uga horreyn aan waddamadii ugu horreeyaan ahayn iyo noo keentay waxay noo keentay sharaf iyo cizi ayay noo keentay waxayna ahaayeen dad aqoontoodu aysan aad u sii fogeyn laakiin niyad fiican iyo vision lahaa arkayay 60 sano ka bacdi arkayay waatana hadda aan joogno inkastoo wax badan ay naga halaabeen laakiin dadkii waa nool yahay wali waana isku cabiri karnaa wixii iyagu ay sameeyeen oo ay noo keentay 17 sano kadib xorriyadaas aan ku caana maalnay muddo 30 sano ah iyo wixii ka dambeeyay in aan isbarbar dhigno haddaba marka ilaahay aqluna siiyay inaan qaadano wax noo wanaagsan haddaan ka hadlayno qaran haddaan ka hadlayno inaan la tartanno caalamka haddii dhexdeena aan tartamayno reer hebel iyo reer hebel ay tahay xaajadu waa sax meeshaasaan joogaynaa marba meel aan duminno marba meel aan dhibaato ka samayno dadku has dhameeyaan haslaayaan waa markii ay tahay reer iyo reer markay tartamayaan laakiin marka qaran uu la tartamayo kulama tartami karno qabiil kulama tartami karno waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale caalamka kuwa dhibaataysanna aan u caawin karnaa annaguna aan isu caawin karnaa waan uga bixi karnaa gudnimada aan ku jirno oo ah Soomaaliya wax hala taro Soomaaliya waa dhibaataysan tahay Soomaaliya dagaal yaa ka jira sokeeye waxaan uga bixi karnaa waxay tahay annagoo qaadana formalihii ay keeneen aabayaasheen SYL iyo SNL ay keeneen inaan qaadano oo ahaa inaan ka shaqeyno waddaniyad iyo inaan ka shaqeyno midnimo waxa u dhaxeeya malaha waxay fahamsanaayeen waxa la yiraahdo dimuqraadiyad yay fahamsanaayeen dimuqraadiyaddu marka waxa weeye wax wanaagsan way dimuqraadiyaddu macnaha qof xoog ku xukumaya ma aha ciidan isu adeegsanaya ma aha waxa weeye dimuqraadiyadda fakar ka fiican in la keeno iyo waxqabad ka wanaagsan in la keeno oo lagu tartamo annagoo mid ah annagoo midaysan iyo annagoo waddaniyiin ah fakarkaasi inuu ku dhammaado fakar waxqabad oo ummaddu aan ku horumarinayno caalamkana aan magac uga yeelanayno
iyo sumcad markaasi waxa weeye tartankaasi yaa waxa ka soo baxaya dowlad wanaagsan waxa weeye dimuqraadiyaddu in shacabka xoogga lagu celiyo awoodii lagu celiyo oo iyagu ay kala gartaan wax u wanaagsan iyo waxaan u wanaagsanayn aanan lagu khasbin haddii shacabku ay doortaan qabiil oo ay arkaan qabiil inuu wanaagsan yahay 30 sano dib ugu noqonaynaa ogaada haddii arkaan shacabku in wadaniyadu ay fiican tahay midnimaduna ay fiican tahay SYL tilmaanteedan qaadanaynaayo ogaada waa labadaas waxaan kala dooranayno laakiin marna yaan la oranin shacabku wacyigoodu ma sareeyaan la oranin wacyiga shacabku waa sareeyaa anaa og shacabkeenu waa dad aad iyo aad u caqli badan aan la khayaami karin oo kala garan kara waxa wanaagsan iyo waxa xun mar qabiil waa la soo dhex gashadaa caadifadu waa iska jirtaa laakiin markay runta tahay shacabkeenu waa dad caqli badan oo garaadkoodu fiican yahay kala garan kara wax u wanaagsan iyo waxaan u wanaagsanayn saas darteed shacabka inaan dib awood ugu soo celinno aan ku aaminno iyagu inay cod ka bixiyaan haddii ay dib noo celinayaan iyagu ay qaataan eedeeda haddii hore loo soconayana iyagu ay qaataan amaanteeda waxay fahamsanaayeen SYL waxay fahamsanaayeen in dawladda loo qaybiyo 3 qaybood qayb sharci dejin ah legislative la yiraahdo qayb xukun ah oo executive la yiraahdo iyo qayb maxkamad ah oo judicial la yiraahdo waa waxa dastuurkeennii 60-keenii noogu yaalay 3 awoodood oo kala qaybsan oo balance gareynaya oo midna aysan sheegin karin awood dheeraad ah aysan sheegin karin waana sida adduunka dimuqraadiyadda ay ku dhisan tahay SYL iyo SNL intaasay ogaayeen dhalinyaradii gobnadoonka ahaa waxay ogaayeen xoog inaanan waxba lagu xukumi karin ee lagu xukumo sharcigu inuu sareeyo haddaba annagu maxaa ay tahay inaan ka baranno marka weliba dowladdan hadda joogto maxay ka baratay ogaada annagu waxaan ku nimid isbedel doon yaan ku nimid isbedel doonka la sheega ma ahee waa isbedel doon dhab ah yaan ku nimid oo aan niri xaaladda jirta waxbaan ka bedelaynaa xaaladda jirta waxbaan ka bedelaynaa inta yar aan joogno annagoo ka baranayna wax SYL annaga tilmaan SYL baa noo ah ogaada ma aha waxaan adduunkana ka baranayno waa waxaan indhaheenna ku aragnay weeye waa awooyaasheen waa aabbayaasheen weeye waxay sameeyeen oo u hagaagay oo u shaqeeyey aan hubo annaguna inay noo shaqaynayso oo maxay tahay in aan mas-uuliyadda shacabka aan la wadaagno in sharcigu uu sareeyo inaan ka hadalno doorasho qof iyo cod ah waxa weeye waxa laga rabo shacabka weeye waxyaabaha shacabka laga rabo mas-uuliyadda ay leeyihiin shacabku waxay tahay inay shacabku ilaaliyaan sharciga inay ilaaliyaan iyo nidaamka ay ilaaliyaan iyo kala dambeynta ay ilaaliyaan oo qof walba meesha uu joogo uu askari ka yahay oo aadan sugin booliis iyo military ciidanka xoogga iyo isluubta iyo nabad sugiddu inay nabad ku keenaan oo adigu nabadda naftigaaga aad qayb ka tahay oo sharciga qayb aad ka tahay oo baabuurta markay jidadka marayaan aan traffic loo baahan oo qof walba uu ilaalinayo sharcigu ilaalinayo oo booliis meel walba taagnaan loo baahan oo qof walba oo shacab ah uu ilaalinayo amniga oo kii xun uu soo qabanayo uu leeyahay hebel waa qof xun ummadda laga qabto maxaa yeelay hadduu qofkaasi fakado waxaa laga yaabaa adiga inuu kugu soo noqdo uu ku dhibaateeyo macnaheedu sharcigu waa wax ummadda oo dhan ay leeyihiin cid gaara ma laha waa dhab cid waxaa jirta enforce garaysa laakiin sharciga in la wada ilaaliyo booliis kaliya uma yaallo dowladda maamulkeeda uma yaallo shacab weynaha Soomaaliyeed dhan ayuu u yaalaa
shacabku waxa laga rabaa doorashadu inay tahay waxa ummaddu iyo dowladnimada isku haya inay tahay doorasho inay tahay shacabku inay yihiin sovereign qaranimadu inay shacabka yihiin oo ay tahay shacabku in ay raadiyaan inay codeeyaan yar iyo weyn qof alla qofkii qaangaara shacabku waxa laga rabaa inay canshuuraha bixiyaan maxaa yeelay wax walba furaha waa dhaqaale haddii shacabku aysan qayb ka ahayn inay dhaqaalaha bixiyaan dhaqaalaha xaggee ka imaan jidadkeenu waa burbursanaanayaan magaaladu nolol ma jirayso nolol ma lahaanayso iskuulo ma jiraayaan biyo nadiif lama cabaayo gobollada lama dhisaayo ciidanka iyo amniga saas yay ahaanayaan mushaahar yar baan siinaynaa ciidanka guryo u dhisi mayno soo ma garan marka waxaasoo dhan waxaa kofargareeya muwaadin kasta oo yidhaahda qaybteedan ka qaadanaya maxaa yeelay dowladnimada anaa iska leh maxamed cabdullaahi ma laha maxamed cabdullaahi waa maamule xukuumaddu waa maamul maantay joogaan bire tegayaan laakiin bildinkan tiyaatarka ah aduu kuu hari haddaadan dhaqaalo bixinna lama dhisi karo isbartiibada haddaadan dhaqaalo gelin lama dhisi karo dadkii shalay noo dhisay waxay ka keeneen dhaqaalahaasi shacabkooday ka soo aruuriyeen waxay yidhaahdeen shacabka adduunka jooga oo noo baahan oo masaakiinta ah yaa waay annagaa ugu dhacnay ishaaradii waxay yidhahdeen soomaali weyn ogaada shacabkooda iyo shacabkeenna waa isleeyihiin haddaad idinku bixisaan canshuurihii qof walba laga rabay gabadha shaaha karisa islaanta yaanyada suuqa ku haysata iyo kambanida waaweyn oo telecommunicationka haya iyo baabuureyda iyo shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha shacabka biyahaasaan cabbeenno waa in canshuur laga bixiyo qofka markuu gurigiisa ka soo baxo wuxuu u shaqeeyaa dowladda maxaa yeelay baabuur buu soo qaadan lacagtuu bixiyo dowladdu waxbay ku leedahay haddii uu xafiis yimaado uu shaqo yimaado lacagta uu ku shaqeynayo dowladdu waxbay ku leedahay makhaayid hadduu tago uu raashin ka cunaayo canshuur baa laga goon dowladdu waxbay ku leedahay xaflad buu aadi shaah buu cabbi wuxuu rabo ha sameeyo dowladdu waxbay ku leedahay haddii qof walba qaybtiisa uu bixiyo kaalmo dibad uma baahnin laakiin waa isxilqaan shakhsi ah oo qof walba muwaadin ah looga baahan yahay waa mas-uuliyad iyo waajibaad aad leedihiin oo aad u rixaysaan inayna siiyaan norwegianka iyo European Unionka ay yiraahdaan hooya iyagu cirka lacagta kama keenin dadkooda ka soo aruuriyeen wixii iyaga ka badnaaday yay yiraahdeen yaad ku taakuleysaan yaa ugu tabarucdaan ogaada annagu masaakiin manihin annagu sabool manihin laakiin waxaan fahmi laanahay dowladnimada iyo xiriirka shacabku leeyihiin aan fahmi weyn waxaa loo haystaa dowladdu wax cirka ka timid iyadaa taqaana see u soconayso haddii wax qaban weydana waa loo haystaa laakiin muwaadinku isma saarin isagu naftigiisa mas'uuliyad isma saarin ma oran dowladnimada anaa iska leh waxa ay qabanaysa anaa iska leh anaa manafacsanaya marka aan wax ku darsado sidaas darteed shacabka Soomaaliyeed ha ogaadaan haddaysan canshuur bixin gacantaan hoorsanaynaa haddaysan canshuur bixin xaafadaheena iyo jidadkeena biyaha saasi u fadhiisanayaan haddaadan canshuur bixin iskuulo fiican lama dhisaayo haddaadan canshuur bixin tuulooyinka iyo magaalooyinka lama gaarsiin karo cisbitaallo gabdhaha Soomaaliyeed lagu umuliyo haddaadan canshuur bixin jidad lama dhisi karo haddaadan canshuur bixin ciidamadeenna ma siin karno nolol wanaagsan maalin walba dagaal iyo u dhintaan maalin walba difaaca dalka u dhintaan qorax iyo waxay taagan yihiin iyo dhaxan mushahar fiican ma qaataan waxay nagu leeyihiin inaan guryo fiican u dhisno waxay nagu leeyihiin carruurtooda inaan siino waxbarasho wanaagsan waxay nagu leeyihiin inaan caafimaad siino waxaasoo dhan waxay ka imaanaysaa jeebkeenna ka imaanaysaa ma aha waxaan soo barinay ma aha intaas adduunku ku kala hormaray dowladda waxaa laga rabaa marka wixii aad keenteen dhaqaalihii canshuurtii inay idin maamushaan laga rabaa
waxaa laga rabaa dawladdu inay cadaalad keentaa la rabaa haddii cadaalad la waayo dagaal sokeeyaa imaan haddii cadaalad la waayo faqrigu waa hooygaaga maxaa yeelay qof xun aan mutaysnayn yaa meel sare la geen markaasuu wuxuu ku cayaari karo ku cayaari saas darteed dawladdu waxaa laga rabaa in ay cadaalad iyo sharcigu ay ka shaqayso inuu noqdo kii sarreeyey inuu noqdo dawladdu waxaa laga rabaa wacyigelin xoog leh inay samayso oo dadku ay educate garayso ay wax barto ay wacyigeeda kor ugu qaado maalin walbaba laga hadlo waddaniyadu waxay tahay dal jaceelku wuxuu yahay in laga hadlo waxaan wada leenahay inay ka wanaagsan tahay waxa qofku shakhsi u leeyahay haddii aad waxaad leedahay ay tahay waxa ugu wanaagsan dadka kula nool oo dhan ay dhibaato ku jiraan waxba ma haysid faqri baa tahay laakiin haddaad guri yar iska leedahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan guri saas oo kale wada leeyihiin oo dadku aysan baahi qabin oo nolol wada siman ama nolol fiican leeyihiin carruurtaada iskuul ku dhigtaan caafimaad aad haysato waxaa tahay hodan qani ayaa tahay waxaa kale dawladda laga rabaa inay sharafkii iyo sumcaddii dawladnimo iyo dadnimo iyo ummadeed inay soo celiso yaa laga rabaa dawladda oo ah in shacabkeedu horta ay taageerto dawladdeeda ciidamadeedu ay ahaadaan ciidamo wanaagsan adduunka markaasaa lagaa karaameynayaa oo lagaa xurmeynayaa oo lagaa sharfayaa adduunka haddaa rabta in laga sharfo waa inay halkan ka bilaabato waa inaan amniga ka wada shaqeyno qolooyinka nabadiidka ah oo maalin walba ka shaqeynaya inay naf gooyaan oo ay dhiig daadiyaan oo dhaqaalaha burburiyaan oo hantideena burburiyaan inaan kulligeen ka wada hortagno maxaa yeelay waa cadow dibadda nalooga soo diray loo soo diray nolosha inay ku diidaan ma aha dawladda kaliya waxay la dagaalayaan shacabka Soomaaliyeed waan idinkaga mahad celinayaa 3 sano iyo barkii inaad dagaalka qayb ka ahaydeen in shabaab la arkay waxay yihiin inay yihiin cadow shisheeye laakiin wiilasheenna la isticmaalayo oo la adeegsanayo in qof walba oo Soomaaliyeed uu ogaaday inay shabaab cadow Soomaali ay yihiin aysan ahayn cadow shakhsi ku aadan kaliya ay yihiin cadow hooyo Soomaaliyeed aan u naxin oo dilaya wiil Soomaaliyeed oo mustaqbal leh oo dalkan difaaci lahaa dilaya askari dalkiisa difaacanaya dilaya hantidii ummadda ay lahayd burburinaya oo aanan waxba u naxaynin inay yihiin inaad ogaateen oo haddaan ognahay oo qof walba oo Soomaaliya uu qaybtiisa uga jiro inuu la dagaalamo waad ku mahadsantihiin waana ka guuleysanaynaa insha Allah dagaalku waa socdaa ilaa aan ka adkaano waana jabeen waana dhibaataysan yihiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo soo hadeeyo kuwooda roon kuwooda xun oo ajnabiga ku dhex jira ilaahay inuu ummadda ka qabto yaan ilaahay ka baryaynaa waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa halganka dawladnimo waa socdaa halganka isbeddel waa socdaa annaga ku nimid isbeddel dhab ah isbeddelkiina waa socdaa waad aragtaan waxyaabaha aan qabanay waad aragtaan horumarka la gaaray laakiin weli fara kama qodna hawl badan baa noo harsan waxaan rajaynayaa halgankaas iyo isbeddelkaas joogtada ah oo horu socodka ah sidaad uga jawaabteen inaad uga jawaabtaan oo aan horumarino mustaqbalka carruurteena aan horumarino wadajirkeena aan xoojinno midnimo dhab ah aan keenno ummadda Soomaaliyeed sharafkeedii iyo sumcaddeedii inaan soo celinno ciidamo xoog leh oo difaaci kara maxaan ku raahdaa ummadda Soomaaliyeed aan helno annagu dhexdeena nabad aan ku wada noolaanno dawladaha dariskana aan nabad ku wada noolaanno khayraadkeena aan u tagno oo aan maxaan ku iraahdaa ummadda Soomaaliyeed aan hubo haddii visionkaas iyo aragtidaas dheer aan wada leenahay aan ku soconno dalkan inuu noqon doono dal qani ah loo shaqo yimaado dadkeen dibadaha ku jooga oo dhibaataysan ay ku soo noqon karaan qof walba oo dhalinyaraha uu shaqo ka heli karo carruurteena mustaqbal ay lahaan karaan tacliinta oo muhiim iyada naftigeeda aan xoojin doonno waxaad ogtihiin hadda aan tilmaamee
in aan soo celinay waxbarashadii lacag la'aanta ahayd qorshaheena uu yahay ilaa milyan inaan gaarsiino hadduu ilaahay yiraahdo oo fursaddaas la helo iskuuladii inaan dib u soo celinay oo aan dib u dhiseenno inaan sameeyno isbedelada aan sameeynay ay tahay dhaqaalaha aad ogtihiin aysan ahayn inaan hadda ku soo celiyo isbedelada aan sameeynay ay tahay isbedelada amniga ah oo aan dib u habeennay ciidamadeenna isbedelada aan sameeynay ay tahay isbedelo bulsho iyo wacyigelin shacabkeenna oo aan isku xireenno shacabka iyo dowladdooda aan isku xireenno insha allah intaas in ka badanna waa gaaraynaa hadduu eebbe yidhaahdo haddaan wada jirno oo aan wada shaqeenno oo garbaha isqabsanno iyo gacmaha isqabsanno waana guulaysanaynaa ummaddeenna waa guulaysanaysaa dalkeenna waa guulaysanayaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu